عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga jaranka ku xiran waa idin salaamo meel walba aad joogtiin kusoo dhawaada waa walaashin sacduush kookana mar kale idin inta video cusub walaalaha cusub waxaan leeyahay soo dhawaada subscribe na taabta kambeelkana furta walaalaha noola joogan waxaan leeyahay idinkana soo dhawaada galab wanaagsan qof waliba waqtiga uu tahay ilaahay ha u barakeeyo waqti wanaagsan allah uga dhigo insha Allah maanta waxaan sameysanaynaa bur yar oo macaan badan oo hadana aad u fudud insha Allah hadda waxaan haysanaa waa 2 galaas oo bur ah waxaan kala ku darsaday waa heel qaado caano boore waxaan kala ku darsaday 1 qaado leebate waxaan kala ku darsanaynaa blue band iyo xabad ukun ku darsanaynaa insha Allah biyo qandac ku soo qasanaynaa haduu ilaahay idmo iyo wax yar oo sokor ah intaas ka kooban tahay waan soo qasanaynaa insha Allah waan soo cajimaynaa oo soo diyaarsanaynaa وكان أحبابي وسوقسي وسوعجمي إن شاء الله وحنسوينا إلا ونوقص وقميره قمير تاسو بدلنا كمربنا وحرا وحير انت وحصود ديارتنا إن يسو قميرته ساني ديارنا وقتهاي بسم الله مركور وحاد ديارسنينا هيدبكي أدو حنسو ديارسدي تاود كسو سارني وحروا هيدب ير وهيدب أري عجر كهيدب أري كان كسوبي jiirtan ka jarjaray waan soo shiiday xabad basal iyo xabad tuun aan ku soo shiiday hal xabbo basbaas ah marka waxyaro saliidan ugu shubanaynaa taawada waxaan rabaa hilibku uu ii shiidan yahay inaan taawadan waxaan rabaa ku soo sameeyo insha Allah hilibka qiyaas ahaan waa nus kiilo hilib ariya maanta isticmaalaa haduu ilaahay idmo insha Allah hal xabbo basal iyo waxaan ku soo shiiday xabad tuun iyo hal xabbo basbaas ah idin ku sheegay wax biyana kuma dari doono haduu ilaahay idmo waxaan rabaa biyaha asaga oo dhalo iyo saliidan inay ku shiilanto kadib xawaaji iyo waxaan ku darsan doonaa maraq digaag oo dhanaaninaynaa hilibka ariga karis badan ma rabo oo ka jilcan yahay hilibka geela neefkana neef yar oo ahaa hilibka dabka naxuusa uga dhig waan ka gaabiyay waxaan rabaa tartiib inuu igu karo oo biiro oo waxaan rabaa macquul inuu dhalo insha Allah hadda waxaan karsanaynaa 1 galaas oo bariis ah digsigaas aan saaranay dabka dhinaca kale ka saaran doonaa biyaha markay noo soo karkaraan 1 galaas oo bariis aan rabaa bariis cad inaan kariyo waxaan ku darsanaynaa xogaa yar oo saliid ah wax yar oo cusbo ah qorfo iyo dhagayaro bariiska ku darsanayna bariis cad aan karinaa haduu ilaahay idmo waxyaabaha ka sameeyay si aan isku dardaro ila socda asxaabay waa kana wali dabku saaran yahay hilibkii
weli biyaha ku jiro marka ilaa nooga angaga sugeynaa wax yar aan nooga harsan. digsigiina dabku noo sii saaran yahay. maraq digaagaan ku darsan doonaa. gabal ka isticmaalayaa maraq digaaga. xawaashkan isticmaalaa aad uu caraf badan yahay cuntada markaa ku darteedna maasha Allah aad uu carfiyaa waxyaabo badan oo ka kooban yahay basal qorfood heel waxyaabo badan oo ku jiro marka insha Allah wadankiyoona yaalaa. hilibka hooshiisa intaanay ku eg tahay oo inoo karay wuu noo qalalay wax yar aan sugeynaa xawaaji intaan uga gidgidinayno. bariiskan saa hore idinkugu sheegay bariis cad soo karsan doona hadduu Ilaahay idmo. bariisku waan soo dhaqay hal galaas kama badinaayo hal galaas aan karinaa insha Allah. hadda waxaan ku dar saliid waaye wax yar oo cusbo aan ku darsanaynaa qorfo iyo dhageeraan ku daraa hadduu Ilaahay idmo. bariiskan soo karsanaynaa biyo badan aan ku karinaa hadduu Ilaahay idmo. waxaan rabaa sida baastadii oo kale inaan ka miiro biyaha bariis karsan oo laakiin furfuran waxaan rabaa maasha Allah asxaabi haddana isla taabadii dabka soo saaray waan kusoo laabtay. bariiskina waa soo kari waan soo miiray waxaan rabaa baradho inaan shiilo. xogaa yar oo saliid aan ku shubanaynaa. saddex xabo baradho yar yaraan soo hoolay iyo saddex xabo kaarood afar xabo basalna waa u soo jarjaray. saliid ilaa nooga qandacdaa sugeynaa. baradhada marka la hoolo karis badan ma rabto wax yar waan shiilaale hadduu Ilaahay idmo. afar xabo waaye basasha oo yaryar. basasha ayada naftirkeeda ma rabo inay zaid u dhimato wax yar leen rabaa inay soo shiilanto hadduu Ilaahay idmo. baradhadii karootadana waatana waan soo hoolay waan soo dhaqay hadduu Ilaahay idmo. ayadana waa shiileynaa. basasha gaduud zaid haday iga noqoto qashay iga noqonay ma rabo. basal waxaan rabaa oon soo shiilantay oona muuqato. basasha ma rabo inay iga dhimato inay muuqataan rabaa hadduu Ilaahay idmo. karootadii baradhadaan ku darsanaynaa. waan soo dhaqo soo nadiifiyay wax yar oo cusbaan soo mariyay. ayadana waan dhanaaninayna maraq digaag yar ku daraa hadduu Ilaahay idmo iyo wax yar oo xawaajiye insha Allah. kadib waan isku soo laabanayna asxaabteeda la socod wanaagsan.
waa kan asxaabay hilibkii hal xabo barbarooni aan kusoo daray baradhadii iyo basashaan soo shiilaayay. hilibkiina waa kan aan hadda soo samaysanay. waxaa kaloo ku darsanaynaa xoogaa yar oo bariis ah. jiis way taasna jiiska hoolan haddaa haysatid waa ku darsan kartaa mozzarella cheese, laakiin aniga jiiska murabbaca ii yaalay kaasaan soo jarjaray. wax yaraan ku darsanaynaa bariiskana. bariiska soo ujeedin soo furfur u yahay. kulli ma isticmaalaayo. intaan isku labanaynaa. burkana waxaan kasoo dhigi doonaa 4 cad hadduu ilaaha idmo. intaan waa isku labanaynaa si fiican isku soo labaynaa. burkana 4 cad aan kasoo dhigayaa. 4 fidisaan ka wadaa yacni oo noo qamirsan yahay. si fiican aan usoo fidsanaynaa oo isku soo laabanaynaa. asxaabi waa ujeedin aad usoo fidiyay weliba si fiican usoo fidiyay oo khafiif ah. wax yar wuu iga dildiilmay taas, laakiin mushkilad ma lahan. markaan duubo asaas ku imaan doona hadduu ilaaha idmo. saliid fiican waa isticmaalayaa waa ujeedin. gacanteeda wax ka muuqdana waa saliid. marka ugu horeysa wax yaraan soo laabay. kadib bariiskii baradhadii iyo hilibkii isku sudanaa aan ku shubanaynaa. waan ka badbadinaa waayo waxaan rabaa burka inuu xoogaa yar space fiican uu lahaado. yacni inuu dhudhub zaa'id noqdo ma jecli. wax yar waan ballaarinaa insha allah. hadda waxaan saaranaynaa xoogaa yar oo jiis ah. jiiska anaa soo jarjaray. jiiska hadaadan jeclan waa iska dhaafi kartaa. tartiib oo usoo duuweynaa waayo burka aada uu khafiif u yahay wuuna jilcan yahay. markiisa horeba aada u jilcan yahay waana khafiif. waa ujeedin soo u dildilaacayo. tartiib oo u duuweynaa. midda kale asxaabay meesha aniga hilib aan ka isticmaalay. malaay waa ka isticmaali kartaa. chicken waa ka isticmaali kartaa. wax halaal waxaa jeceshaa gashan kartaa. qasab maaha hilib inaa haysatid. xitaa qudaar kaliya inaa samaysatid waa gelin kartaa. meesha aniga bariiskii iyo hilibkii aan ugu shubay. marka insha allah inaa fahantiin ayaan rajeynayaa. waan duubaynaa insha allah. waa ujeediin inuu wax yar oo buuran yahay, laakiin qudaartii iyo bariiskii iyo hilibkii aan ku shubay asaa'idi ku dhib kale ma qabo. markaan duubnaa wax yar waan kala jiidaynaa inuu xoogaa yar noo dheeraadaa rabaa. saasaa u kala jiidaynaa. kadib aan duubaynaa hadduu ilaaha idmo. kaas sidaas u duubanaynaa. midka kale waa soo suubinaynaa asagana saan ugu soo dabakabi doonaa hadduu ilaaha idmo. waan soo fidinaa midkaas waan soo duubanayaa. kadib baa idin tusinaa hadduu ilaaha idmo. saxanka foornada ii diyaarsan. midka aan sameeyey waan sii saaranaa.
asxaabay kii kale waa kana oo soo duubay isagana yacni qudaarta aan kusoo shubo ka badan fahanteen dhib kale ma qabo sidii kii awal oo kale aan usoo fidiyey waan soo duubay qudaartii aan kusoo shubay dariiqii horaan qaaday marka ujeediin waan ku daba kabaa meeshaasaan ka gelina hadduu ilaahay idmo isagana waan duubeynaa meeshaan dilacday dhib ma lahan bur yar aan ku kabaa saas ku keenaa isaga la isku keenaa kadib basaabis celinaayo hadduu ilaahay idmo kan saddexaadna sidaana soo yeelanaynaa oo soo diyaarsanaynaa insha allah waa kana asxaabay waan kusoo daba kabay labadii kale noo dhineed 5 daqiiqo kale aan soo qamiiriyey ukun aan soo marmariyo ujeediin waxa korkiisa marsan waa ukun hadda waxaan ku shushubaynaa sisin insha allah foornada 180 aan geeyey waxay noogu jiraan doontaa 20 daqiiqo kadib waa kan asxaabi waan kasoo saaray foornadii haddaan kasoo saaray way kulushahay marka waa ujeedin soo soft u tahay oo jilcan tahay insha allah hadda shukumaayana ku daboolinaynaa wax yar markay noo soo qabowdo aan soo jaranaynaa haddii ilaahay idmo la socod wanaagsan waa kan asxaabay sidaan quruxda badan ku soo baxay markaan soo jaranay qudaartii jiiskii hilibkii wixii dhan saanay ugu dhex muuqdaan maasha allah tabaarakallah ilaahay nimcooyinka ha inoo siyaadiyo meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay nabadii caafimaad ku waara fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu